وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شعب الصومالية ضمن رمضان، عيد مبارك عيد مبارك، رمضان كريم ربينا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. ملك استوى شوكتان ولا لها الصوماليات وإن السلام هيا وأنا نسود وين هيا عيد وناكسن عيدان عيد إذا أنك وقير قبنا وعافمات قبنا الله إسكوكا يسمو الله النجارسيو ويحقق قيرك كجرو إلهي لقبرينا حق ربي لقموايو naxariistiisa badan marka ilaahay waxaan ka barinay in maaragtay qeyr iyo bishaaro iyo caafimaad ilaahay inta jirana oo caafimaad siiyo inta fiyowna ilaahay caafimaadkooda u siyaadiyo iidan iideedana waxaan ilaahay ka baryahayaa shacabka Soomaaliyeed ilbaab daacada inuu uga furo Soomaaliya dhexdeeda qalbigoodana ilaahay isku wada maslaxo oo maaragtay isku hagaajiyo oo inta cadowga xaasidkaana oo ku jirta shacabka Soomaaliyeed oo dhibtay shacabka masaakiintaana ilaahay casa wajalla oo ka qabto ilaahay wixii laga baryay oo qeyrka ku sugan lagama waayo waana in soo dhaweynayaa marka waxa la yiri mindida yaa geeska kala ka haya marka aad rabtid inaad dad dibka ka goysid mindida geeska kale yaad uga dhiibaysaa وأني وضع معنينها وحياة فنية ولقوة قصوى أياتها دولة دمشق أي مريسة ما تيجيتها أيام ربع شروطها كسوة وضع بحي أو أب مقشين يلي بعتذر الرئيسون هي ستنا إن نلاقي بسدان ربع شيكوي نعسه كان نك إميجريشن كصوماليا فديا وحلا قادم كرنا معهم ذاتك إميجريشن هذا كشقينا هي دينا تعلين لهين إن إميجريشن كشقيان بمعهم بكي بروبلم كجرو وحوياي the international of the world مع أفريقيا هذي نقطة إثيوبيا ووصل كيس أمريكية إيربورك أي فيزا لقى قاطع وحنا كتير $100 أو طبعا كسائد كتير وكنت $1 every way أديت وما أركتي أد فيزا قادم يسيت هذي أذن صوماليا هين أما باسبور صوماليا أذن بدن ولقيت وحلقة قادم جري إيربورك إن مركا إن شروطها يسود جين immigration كودات أدوهم qofka haduu fiisiisa dabada ka soo qaato ula jeeda kale ku jirta lacag la goostaa la rabaa hadda inta dawladda ka hartay oo lacagaha Soomaalida looga qaado in maaragtay safaaradda fiisaheeda macna ma leh everything is possible laakiin waxaan leeyahay immigration ka ayaa fiisaha bixiya marka waxaan rabaa inaan inila wadaago in adunka wada og waxa ka socda airportka Sweden waxyaalo aan la qaadan karin يا ما تكدعضي محوهاي أما سام كدعضي سامسي مدى الصوماليات المبارك المبارك صوماليات يكون أفضل في سويدن إنك بدن كنتم قفات الصومالية وما تسعودي مقالة المقدشو وكبحيسي إيربورت كدل في سويدن يا ما تهلكم بحيرا قلنا تركيش أرلي محليين حاساكي نوصل دعاي وربحين أما ورقلين كتمت مigration كصوماليا أما migration كصوماليا ودهايا قف كصومالي جاهز وصل صعود مجال المقدشو وإنه وتا باسبور صوماليا أما إنه وتا عزومات أرنكاس يا مان هالكان وحيريهن إنك بدن كتم قفوت سيدا كيسين لكن waxay soo istaageen kolkan tray ama saddexdii galab nimo ilaa hadda oo shantii xogaa taani way sii taagan yihiin welina wax xal ma gaarin waxaan rabaa inaan inay dhamaystiro bakay dadku waxay wataan ilmo yaryar qaar baa xaamilaa naaguhu meesha jooga qaar waxay wataan ilmo yaryar oo isku nuug ah qof waa Soomaali hooyadu qaxi la soo wada qaxay ayaa dhalashooyinka wadamada ajnabiga lagu wada qaatay haddii qofka oo passport ajnabi wato airportka Soomaaliya ka deganayna fiisaha airportka Muqdisho Aadan Cadde ayaa laga qaataa halkaas ay application-ka iyo address-ka ku buuxiyaan markaas ayaa fiisaha loo saaraa maxay tahay waxay isbedelay hadda ujeedadu iyo musuqa iyo maasuqa socda iyo taatikada la badinayo oo la ogolayn sharciga Soomaaliyeed ila farmaajo asaa ka koobo baasaboorkii Mareykanka oo dhiibin ilaa hadda uu haystaayo nalka dhaadhiciyay bari dhaxdaas inuu baasaboorkii dib u celiyay waxaan ku ubaa safaaradda Mareykanka dalada hadashaan farmaajo inaanan still laga qaadin baasaboorkii Soomaaliya marka maxay tahay waxa baarlamaanka ka buuxo dhan waxay wada wataan baasaboorro ajnabi ah
waxa dowladda Soomaaliya maanta u shaqeynayo kulli baasaboor ajnabi ay wada wataan waa ku yaryihiin wax baasaboor Soomaaliya haysta waana runo xaqa iyo xuquuqda waxa u badan in la siiyo shacabka aan waligood wadanka ka soo tagin sida dagaaladu u dhaceen iyo ka horba oo Soomaaliya joogay laakiin nin muwaadin Soomaaliyeed oo dhalashadiisu asalkiisu tahay gasan maanta dhalashadu wato laakiin ninkan waa asal Soomaali wuxuu ka yimid from Soomaaliya saasoo ku qaatay dhalashada marka ulajeedada iyo aqbaaraha ay bixinayaan Fahad Yaasiin iyo maxay tahay ulajeedadu maxaa laga wadaa barkee ulajeedadu intaas kuma sinno waxa jira Fahad Yaasiin walaashiis ayuu u magacaabay inay noqoto mareeyo ku xigeenka batroolka Soomaaliya marka maxay tahay waxa aan ka wada hadlayno haddii walaashiis ka dhigay maaragtay mareeyo ku xigeenkii batroolka Soomaaliya oo u tashanaya kheyraadkii Soomaaliya inuu walaashiis oo mareeyo ku xigaan ka dhigo sida ay qadar wax ku hesho oo isku diro dadka maaragtay aqoonta leh oo Soomaaliyeed oo walaashiis ka tacliin badan oo aqoon ayna u lahayn batrool iyo maareeyo iyo wax kasta oo la noqdo she don't have good education marka maxay tahay waxa uu Fahad Yaasiin loo magacaabayo oo jakadii ay ka dhamaan weysan tahay madaxweynihii iyo ninkii anagu la taliyihiisii aan u naqaanayo ninka dhigta qadar wax ugu sheega ah marka waa wax laga dhinto iidaana lagu jiraa yawmul khayr weeyaan wixii qalad wada ilaahay azza wa jalla ka qabta Soomaaliya waxa la yiri mindida iyo geeska kala ka haya shalay waxa lagu eedeynaa Xasan Cali Khayre inuu baabiyay dadka uu ka soo jeedo yeeyin dadka uu ka soo jeedo waa hawiye baro habaabi Xasan Cali Khayre hawiye ha ku tuntee laakiin yaa mindida dhinaca dambe ka hayay ya farmaajo ka hayay mindida dhinaca dambe oo gadaale farmaajo ka hayay marka waxaan ku leeyahay maantana waxa soo baxday dad badan oo Mareykanka joogo asaga qabiilooyinkiisa oo family soka ah ma ahnan kay qabiilo shiiqaaleed hadoo wax si la shiiqaal cilba ma qabeen anigu inkastoo anigu loo bagahay iyo ma aragtay aan aqaano oo qudubka iyo aan dadka kale shiiqaasha aan aqoonin oo barkay hore iskuma aan arag laakiin labadaas aan si fiican u aqaana ree oo qudub iyo loo bagay marka waxaan rabaa inaan inii sheego walaashiisa oo maareeyo ku xigeen ka dhigay batroolka qof kale oo la yiraahdo Aisha oo Mareykanka joogtana wuxuu ka dhigay agaasimo waxa jira waxyaalo badan oo qarsoon oo Fahad Yaasiin oo ka wado wadanka dhexdiisa Soomaaliya ulajeedadu maxay tahay Fahadan aan qadar ahayn uma joogo way investmentiga ay lacagta u galisaa qadar Soomaaliya waxay u galisaa inay madaxa u weynayso Fahad Yaasiin oo wuxuu dhameyn karo oo baabi'in karo shacabka Soomaaliyeed marka ma socoto hadiiba Fahad Yaasiin walaashiis laga dhigay mareeyo ku xigeenkii batroolka maxay tahay waxa aan ka hadlayno meeshaan wax laga hadlo male dadku waa tuuga wadanka jooga ilaahayna waxaan ka baryaynaa shacabka Soomaaliyeed dhibka ay qabaan Allah ka qaado qoraalada waaweyn oo iska soo daba dhacaya ayaa saad u maqasheen baadinkuba waxa jira baabuurtii Khayre uu siiyay dadkii asaga maaragtay la shaqeynayay ay ka mid yihiin 16 qof ayaa waxa laga soo celiyay baabuurtii oo dhan waxa ka mid ah la yiri Sacad waxa ku xiga la yiri Cayr waxa ku xiga Xawaadle waxa ku xiga Murursade waxa ku xiga Majeerteen ilaa hadda inta la hubo oo baabuurtaas laga soo celiyay shacabka Soomaaliyeed loogu shaqeeyay oo hore u xadeen ay gateen ya ayaa la rabaa bakay baabuurtu 16 qof oo 16 baabuur la siiyay baabuurtu intaas waa ka badneed adduunweynuhu noogu soo deeqay Soomaaliya in loogu shaqeeyo ay xabada rasaasta oo meel ay ka timid aan la aqoonin ilaaha wax celiyay inay ka celiso marka baabuurtu inta waa ka badan yihiin Xawaadle ayaa waa dadka laga celiyay lama soo sheegin laakiin waxa ku jira odaygii wasaaradda waxbarashada haystay oo dadka baabi'inayay ayaa ku jira mana ku qorna magaciisa laakiin qabiilooyinkooda yaa waa ragga saacado la siiyo baabuur aniga I don't believe it waa ben iyo xaraan waxay ku hadlayaan yaa waa nimanka Cayr oo baabuur ka watay waa ben oo nahabiina yaa waa nimanka Majeerteen oo baabuur uu siinayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ama dawladda Xasan Cali Khayre I don't believe it qabiilooyinkan Xawaadle ها ويجري قار باجري أنا قانو سيدا جوضح براك ليتو ولي بهال بابور مونا قادنينه بابور تجراش كوجرت أو باركينج كوجرتي لابو كقاتي نكل بوليه جوضح برا مركب بنتام لسكوت تحيل بوليه هاي حالي وحل سعودي اللي حيتون بابور دولة وزارة دقور في لشقينا هي إن حسن علي خيري مركب ولا على الوحى مدن إن وحل سكوي ديو إن أنا رأينا ويديه شعب كسوماليين سدتني يسدح بس الله وصل دقيق قبل كبنادر إن مارك تحافظه هذا الله وشقيه عاويه خبرها بعوينا ياشا أو دردار لقى كيني باورتي لسيه يقندراسك من شن إلى باتم كن عاويه هدي وحل شيء هيو
إلى الدولة دواد دادته رئيس الوزراء كحجينك هدي أي دعدي دولة دي حسن علي غير أصلا وادعي وزير حسن علي غير رواوض دعي محييين دتك ولي ماشي كتير وريجة هي أو إيمانة هي وزارة حسن علي غير كوي وزير دي وحي كتير محي وذا دادن واين ولي أتاجين ولا جدده محي تاي ومارك رئيس الوزراء كحجينك هدي أو نيكي كسر رئيس الوزراء أو دعي أصلا وادعي بيا قاضي maxay tahay waa taagan yahay waxa la yiri ku meel gaar waay yaa ka dhigi kara ilaa ra'iisul wasaariye waxa laga rabay in ra'iisul wasaaraha loo daayo oo si sharaf leh uu ku wareejiyo xilka sida ay noqotay ankay dawladda Xasan Sheekh markay kala guurahayeen ra'iisul wasaarayaashu marka maxaa beenta la iskugu sheegaya meesha biliiqa kala ka jirta baabuurtii Mareykanku keenay Ingiriisku keeneen wadamo Carbeed ay keeneen Yurub keeneen xabad lagama hayo oo xabadu ayna karin maxay tahay 16 baabuur oo la keenay waa naqaan cadada baabuurta adduunyada oo keenay oo Soomaaliya loogu shaqeynayo xabadu ayna karin marka sheekadaas sheeka socota maan xalay Fahad Yaasiin ayaa dhaxgalahaya ma jeerteen baabuur ka soo aruurinaya guryoodii ugu tagay xawaadle iyo Sacdi Cayran ka soo aruurinaya nahaab oo linahaab tahay yo a criminal man baa tahay Fahad Yaasiin waayo al-shabaab baa tahay waana ku naqaana dadka wax qarxiyay iyo meydadkii dhintay dhalinyarada dhan adaa ka dambeeya Soomaaliya waana gaaraysa straight away waxaad u tagaysaa court international ah ballan ilaahay aan kuugu qaadnay inaadan marna aadan ka farabaxsanin aan ku leeyahay bakay yo a killer man baa tahay ninka la leeyahay al-shabaabka oo la yiri waa sirdoon u ah qadar oo tuuga oo Soomaaliya jooga waa in immediately la qabtaa hadda sheekadan iswidhan diyaaradaheedana Fahad Yaasiin baa ka dambeeya he know lot of the Somali inay dib u soo noqonayaan ay soo galahayaan ma fahmaysaa oo soo guurahayaan everybody original meeshu ka yimid oo soo noqonaya Fahad Yaasiin reer Muqdisho ma marka maxuu ka qabanaya waa criminal is criminal weeyaan Fahad Yaasiin waa nin criminal international kana waa looga dacwooday dacwooyinkiisuna aad bay u socdaan markaan baabuur 16 oo la soo celiyo ma jirto baabuurta inta waa ka badan tahay mafiyaatiin adinkaana dhacay oo madaxweynuhu maanta uu weyn yahay oo yoomul khayr yoomul iid ay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa raalli ka ah wadanka la biliiqsado wax kasta oo la keeno waxaad ii keentaan 83 bas oo keentay qadar oo tiri 17 xaafadood oo banaadir ha loogu shaqeeyo intay ka baxeen yaa gatay yaa qaatay yaa maanaki hadda been isku sheegayna ya maxay tahay 16 baabuur oo kaliya la soo celiyay marka Fahad Yaasiin oo ka dhigahayo Maariya ku xigeenka batroolka walaashiis yaa siiyay yaa yiri waad ka dhigi kartaa asaga yaa u ogolaaday waaba sirdoone maxaa dhaxgeliyay siyaasadda Soomaaliya iyo kheyraadka Soomaaliya taas waxaad ku ogaanaysaan meesha tuuganimadu ka socoto kulleeba galmudug ma ahan walaashiis inayna Maariya ka noqoneen batroolna ay waxba ka noqoneen taasaan meedkayga u hubo marka Soomaali waxa leeyahay be careful in laga ahaado waxyaalo badan oo waxa jira Fahad Yaasiin lagu haysto oo maaragtay shirarkii maaragtay kala wajahnaa oo lagu dhigahayay magaalada Dooxa Qadar oo ka qayb galay asagu oo sameeyay marka waa badan yihiin waxaan oo dhan waxa ka dambaysa dawladda Qadar oo dabada ka riixaysa wax kasta in ay Soomaaliya gacanta ku dhigto Soomaaliya Qadar ma lahan mana imateli karto kheyraad aan leeyahayna business ma geyn karto maana kaba been isku sheegayna hadda waa maya marka waxaad ogaataan magacyo badan oo dawladda Niisa Fahad Yaasiin ku soo noqonaysa markaan ay yihiin dad badan oo magacyo gooniya la kala baxay dhibac isha maxay isku yihiin Fahad Mareykanka joogtaa maxay isku yihiin Fahad Yaasiin magaciyo la martadaheeyay oo maaragtay la kala qariyay magacyadu ma wada caddo kulli waxaan soo dhigi doonaa baajinka koowaad oo Facebook aan soo dhigaya hadda hore u aragteen waad u aragteen kulli waa wada qoran yihiin waa la ii soo diray hadda ayaa la ii soo diray marka waxaad ogaanaysaan mardadaha uu ka wado ninka lagu leeyahay Fahad Yaasiin Soomaaliya asaar rugay haddaan Fahad Yaasiin laga eriin Soomaaliya oo dabadda loo saarina never ever inayna hagaageen farmaajo ninka lacagta ku waalay waa saga farmaajo ninka yiri qadar ma rabto ninka lagu leeyahay qayr barkay waxay diiday inay saxiixdo batroolkii Soomaaliya waa bahalkii Fahad Yaasiin waxyaalo badan baa jira shalay hadduu rabo inuu dambi u saaro the criminal on kow ahayn on laba ahayn on saddex ahayn the criminal oo killer man waa Fahad Yaasiin waxa ilmaheeni qarxiyay hooyooyinka goblan ka dhigay hooyooyinka dhulakooda xoogay waa Fahad Yaasiin iyo dawladda farmaajoona laga bixin wadankana walaalayaal wax soconaya ma ay jirtaan ku leeyahay maanta waxay ku hadlaan markay waayeen ayay waxay dhaheen waxa ka bilowdaaya la yiri cida saacad waxa ku xijisaa cayr waxa ku xijisaa mareexaan waxa ku xijisaa xawaad islaaya gaay weeyaan dawladda asaabil qaystay Fahad Yaasiin baa bil qaystay
فهد ياسين دولال بدن أو ضد إسكاليين أي شرع اللو وهايستان الليين أو صوماليات أيا لواي فهد ياسين بان استي مقعد ددبان أو نوع كلا أيو كل استي قريب وكقاضي oday waayeela oo reexa marjajaba anka inuu Fahad Yaasin dilay oo diritaminta kil gareeyay oo shud gareeyay marqaatiyadeedii aan haynaa marka maxay tahay waxa laga hadlahayo maxay tahay dawladda la sheegayo meeshaan dawladdu ma jirto hawiye hadda waxa lagu haystaa qayro waxyaalo badan hawiye waxay mi sheegayaan dadkiina raadinahaya ay ra'iisul wasaare ya farmaajo wuxuu inay arkay dhareerku inuu in ka wada daadanayo ilaa hawiye caada qaata Soomaaliya loogu tagaa oo magac raadisa war mar le aan soo baxay iga dhikraysan wasaare wariyaa waa laga fiican yahay waxyaalahaas oo kale caad qaatayaal baatiin edab inta yeelataan meeshiina jooga 5 bilood waxaan dhameen oo 4 bilood ayaa ra'iisul wasaaraha dahawiyatiin u kala cararaysaan haddaad habar gidirtiin iyo haddaad abgaaltiin iyo haddaad xawaadlatiin iyo qolo kasta aatiin caad qaatayaalaatiin hadaba sheegataan inaad magac hawiye aad 4 bilood waxaan dhameen aad u baabi'isaan Fahad Yaasin waa inay ku tala galay ina qadar أدبرك ونقدم بقرك لوجهنا ونظيفسان مركب بقرك قدر شوجا أن عرب كسوم مريسين عكته وستيسا أيار رئيس الوزراء لقاني جهيا ما قبش هاي نفع إن لويس لفته فهد وصل لفي فهد ياسين أنتو صل لفي أو عرب كل كيس ودن مريه أيار واحد يرينفستمنت العجها كقولنا ياي بابي وحكاو ريمات قرحية أنك أكون صادرين دياردين لما جلي كرا لما كنترولي كرا كتقلوا سالين من الله لين كبون سودوان دوشنا كسر عليه رقف كرت marka midaan inii sheegaya anigu waxaan in leeyahay ilaahay ina baridaan yoomul qeyr weeyaan waana maalin fiican ilaahayna maaragtay Soomaaliya u gargaari baajinadana waa ku soo daadinaya importantiga ay leeyihiin hadaladan kulayba dad badan oo wax garada oo dadka siyaasiyiinta danaynayo dhan waa haystaan marka waxyaalaha Fahad Yaasin uu sameeynayo dadka Mareykan jooga oo magacyaha naagaha leh oo maaragtay la waqasiisay oo ku waxaynahayo ku wajahayo way kaleeto oo dadan marka waxaan leeyahay be careful hal iska ahaado id mubaaragna waa in leeyahay baabuurta maanta la soo soocayna walaal baabuurta inta soo ka badan tahay 16 baabuur ma wuxuu soo celiya xali kaliya baabuurtii oo dhan baa maqal boqolaal baabuur ayaa laga hadlayaa koray u dhaafeen kun baabuurta laga hadlayo xabadu ayna karin waa ka badan yihiin ayagoo exact numberku intuu yahayna ana idin soo sheegay baabuurta iyo meesha laga keenay iyo sida loo kala keenay marka waxaan leeyahay Fahad Yaasin wuxuu asagu Soomaaliya ka sameeyay kama ayna dhicin maanta inuu soo u socday wuxuu qabtay markuu waayay the same uu sameeyay wixii uu sameyn jiray Bayle oo walaashiis markuu dhigi jiray lacagta ayada nu soo dhiibnay inta Mareykan la taga asaga iyo farmaajo ayagoo isdaba ordaaya waxa kana safaaradaana gadnay waa 2 qol oo just 2 bedroom ya ayaa oo midna hoos ku yaala midna kor ku yaala labada qol aan ma sinno bifahmi musqusha qof bil aadana ma gali karo ay soo ijaareen ayay waxay ka dhigeen inay safaarad noo gadeen farmaajo waxaan ka rabaa dawladdiisa waxay gadatay oo la hubaa oo proofka lagu hayaa Virginia City tii ku taalay gurigii safaaraddu ay lahayd oo ambassadorka uu seexanayay asaa ka dambeeyo oo gatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka tuuganimadii uu ku hayay Mareykan ayuu maanta wuxuu la yimid Soomaaliya shicib baaba'an oo masaakiina oo baahi hayso oo ilaahay ma aadama oo maqnayn dhaqaalahoodii ayuu dhacayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaas amar waliba wuxuu ku bixinayaa ninka diida warkayga in laga takhaluso marka siyaasadda dilka qarsoon ah maxay ka leedahay siyaasadda caadiga balkee ninka siyaasad wata gurcan oo raba siyaasadiisu inay banaanka taalo dadka ma dilo ninka ku caayila ma dilo ninka mucaarad buu noqon karaa waa ka hor imaan karaa waad ogeyday waxa lagu dhigay qaanqaan dadkii dilayay ahaayeen niman Norway ka yimid oo la ijaaray oo la siiyay $8,000 ayaa waxa la yiri ka soo taqalusa yaa yiri weeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha yiri yaa soo dhiibay kelmadaas laba ninka la leeyahay Soola iyo ninka leeto maxay tahay waxaan ka hadlayno marka ila Soola wala masruufaayo dhaqaalaha wadanka lagu masruufaayo waa dadka waaweyn oo lacagaha transferka loo soo gudbiyo dadka lagu dilaayay waad ogeyday wiil abgaala waxa lagu tooriyay magaalada London maxay tahay waxaan ka hadlayno marka dawladda Soomaaliya ka socota maxay tahay dawlad gaani caawana waxay la banaan yimaadeen inay yiraahdaan 16 baabuur ayaa Fahad Yaasin dagaay ma aragtay asaa criminal Fahad Yaasin waa criminal marka waa al-shabaab waa ninka investment-ga geliya al-shabaab ilaa Nairobi wadaadadii joogay oo ataagi jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninkan way isku xiran yihiin waxa laga masruufaa dila Soomaaliya maxaan ka hadlaynaa maxay tahay wixii oo muuqda aad u jeedin aad waxa leedahay nabi baaba ma jirto waxaas ma jirto ma soconay marka lugay bil aadanka aad cunayaan u jeednaay lugay baa carabkaada lagu hayaay maxay tahay waxaad inkiraysaan
marka anigu xalay si guracan aan ula hadlay Eid Mubarakna waa u diray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anu si kastoo u caayay si kastoo u dhalalo asaa isoo doontay wuxuuna igu soo doontay koob maalintuu soo baxay sikin wuxuu igu soo doontay maalintuu kursi aan leeyahay oo ku fadhiistay ee shacabka Soomaaliyeed leeyihiin ay ceeb mid ku qarsoomaysa mid jirto oo lagu caynaya anigu kuma dhin kaal madaxweyne ii noqo adaa waxaad iska dhigtay nin daacadaho wadanka Soomaaliya daacad iyo ma aragtay inaan la laqdabaynin shacabka Soomaaliyeed inaan xaqooda la dhicin inaan xoolahooda guriga laga dhisanin adaa iga ballan qaaday waa lagu dhaariyay kitaab jaamacaha gacanta lagu geliyay lacagtii wadanka xagee geysay 3 sano iyo 6 bilood 7 bilood xagee geysay adan ku weydiinayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo winnow lacagta ku soo gashay macati ciidamada la waayay soo ma xasuusatid inaad adoo samaystay wiilal dhalinyaro oo masaakiina oo adeer aad u wadato jilib hoose la mareexaan oo dhan aniga raalaha iga noqdaan anu mareexaan oo dhan ma haystee jilibka asaga oo ka dhasho reesada Soomaali wiilashii aad ka keentay caadad waaqiya gado oo electrical kugu soo tababarayo oo just now aan kula hadlayo maantay xalay bila Soomaaliya oo dhan 20 jir lagu soo wareejiyay in laga takhaluso Soomaali wiilashaas sida waxa tusaysaa qabiil biri markii la dilo la gowracana qabiilku adoo ku qabsanaya Soomaaliga dilo ma la qabsanayo barkee waxaad ugu tala gashay inaad ka dhigato waxaad iskaga celinaysid shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro hooyooyin Soomaaliyeed aan dhalay ayaga dib ka soo maray iyo dheef wax kasta ay tahay ilmahan marka ilmo islaameed inta gurato oo qabiil ahaan aad u soo gurato ayaa waxa ku soo wareejisay villadii marka anigu waxaan u sheegayaa cid sida hadii biri kamaal ilmihiina la dilo nin hawiyaha u qabsan kartaan ma jirto nin Soomaaliyeed jeex iyo jareer dir iyo daarood aad u qabsan kartaan ma jirto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliya aad u qabsanaysaan xalay waxa la sameeyay villa Soomaaliya banaan iyo gudaba ciidamadii سدال قصور يجيو مريحان وأكينا مشوا قارو وأكينا قبيل أصارنا بري بكي هدوني إبري شالي أنا قو مصعب بيه والقبيل هاللقطة والواويل وناكسر ما أنا دهن أسوق مريكن كتشوفه ونمن إكا كسر دعو الله قاضي هبرق دري إما أنا دهن قال إن الأمان نين كانوا أنا قلنا فيسبوك يوتيوب يدا قرالك عم كوبا دينو مفهم إنسان مركا وحواي فرماتشو وأكينا وحو سميو إن حس على غيرنا sida aan ogahay oo warku ugu soo gaarayo wali kama una guurin dadka yiri guriga oo jaaranaya been baad sheegteen iga raali ahaada wuxuu ku dhex jiraa airportka dhexdiisa hotelka laga dhisay halkaas ayaa ku ilaalisaa oo ciidamo badan oo ilaaliyo loo sameeyo meesha lagu ilaaliyo barkeen naftiisi ayaa qalqiil ku jirta waxyaalo badan oo wax ka ogyahay Xasan Cali Khayr ayaa la rabaa in lagu qaarijiyo yaa way dadka raba in qaarijiyaan Xasan Cali Khayr oo careful anigu kuma eexanay kabaha korkooda adigu la socotay meedkaygii baa waxa ku duugtay kabahoodii laakiin waxaan ku sheegayaa Fahad iyo ninka la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku tashadeen waana lagu qaarijinayaa aad waxa tiri guriga u jaaranaya soo lagu ma dhin still hotelku ku jira security culusaana ilaalinaya waana ninka ay rabaan inay qaarijiyaan oo faraha ka haya dadkii Xasan Cali Khayr waxa loo maleeyaa sida ay sheegayaan arrimahan dokumentiyooyin badan wixii ay gurteen xafiiskiisa iyo lacagii kaashka ay kala baxeen ma ahaan 40 milyan intii kale oo dhan Xasan Cali Khayr inuu qaaday ma fahmaysaa marka walaalayaal waxaan leeyahay waa inaad be careful iska aadaan magacaabida kale oo la magacaabay oo la sheegay caasha haye casuumaad caasha iyo Cusmaan Axmed waa dadka Fahad Yaasiin soo wada magacaabay oo tolkiisa oo raba khayraadka Soomaaliya ma aragtay xagga batroolka maareynta kala wadka kulli in uu ku waxeeyo haye oo Mareykankay joogan dadkaas ma joogan hadda laakiin Mareykanay joogan balse magacyada sida loo kala qariyay arka haye Xaliima Sacdiyo waa badan yihiin dadku oo Fahad Yaasiin ay yihiin waliba dadkaas badan aan soo tilmaanay caasha iyo dadkii oo dhan qaraabo hoose oo candho wadaaga ilma habreed ilma adeer weeyaan dadka la soo magacaabay ogaada oo rabo Fahad Yaasiin oo khayraadka Soomaaliya gacanta u geliyo Fahado waxba ma sameyn kartid dawladdan waa dhacaysaa wandayna loogu dari maayo shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka dhaadhicinayaa oo maanta halkan inaan reality-ga aan ugu sheego anoo qayb ka baaqayo oo dhahaya ma sha Allah tabaarakallah waxyaalaha loo tashanayo shanta nin uu soo doortay sheekada galmudug iyo waxyaalo badan waa arki doonaa Agoosto birey ku tahay waxaan in leeyahay one day hadii la yiraahdo Farmaajo waa loogu daray hayeelinina haddaan rabtaan inaad nolol iyo caafimaad awlaadiinu dariiqyada ay ku marto Farmaajo waa in kursiga uu ku fadhiyo adinka iskale shacabka Soomaaliyeed nin shakhsiya ma lahan shacabka iskale waa shaqaale edeb
ma ayna yeelanin shaqaalihii la rabay shacabka inay u shaqeeyaan shaqo abuur u sameeyaan ay warshadoodii u furaan ay waxbarasho cusub oo firiya siiyaan iyo wax kasta isbitaallo firiya oo maanta nin aan $10 haysan ama $3 oo isbaari karin ayaa jooga muqdisho oo dariiqyada baahi dareedeed ay dhiiqada la dhex fadhiyaan waxaan leeyahay haddii lacalla la yidhaaho 6 bilood baa loogu darhayaa haddaad one day ka yeeshaan one day soomaaliya dad jira matiin farmaajo waddankan asaga iyo Fahad Yaasiin ama maareeyaha tilmaanto ama walaashiisa tilmaanto we don't care waa wada soconayaan asaga iyo waxa la dhashay iyo wuxuu ku tilmaamay xaquuqo aynan iska lahayn aboowe kuwii hore cidiyaha u soo siibay ayaa wali jooga oo qurbi joog oo isha ka wada fiirsanaya waa inaad dillada ugu gashaan maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad mideeda kale waxa laga rabaa gobolka banaadir oo saarka u urahaya oo wasaqda iyo dhiiqada iyo qashinka iyo kaneecada ay saas dhiiqada korkeeda u taalo daacunka laga wada qaadayo maxamed cabdullaahi farmaajo kursiga inaad ka kicisaan lacagtii lagu dhisi lahaa dariiqyada dhiiqada buuxdo dhagaxda shirkadii lagu dhisi lahaa waa ninka intuu qaaday geeyay caabud waaq iyo wuxuu geeyay gado warshadii loogu talagalay jowhar iyo balcad waa ninka intuu qaaday gada geeyay marka adinka imi jirtaa saa wax u samaysanaysaan farmaajo waa nin qiyaamalow ah waana madaxweyne tuug ah anigu hooyadiisna wax dhihi maayo aabiisna wax dhihi maayo markii wax ka gale waa ku dhale isoo raac qof aan ma jiro laakiin inuu tuug yahay madaxweynaha soomaaliyeed oo maafiya yahay farmaajo maanta ay noo caddaatay asaga iyo Fahad Yaasiin baan waddanka horta Fahad Yaasiin waa in laga qabtaa farmaajo waa la xisaabtami karnaa Fahad Yaasiin waddanka in laga qabtaa waxa loo keenay inuu baabi'iyo qadar bay dabada ka wadaan waad maqlaysa xalay qorqor ayuu la kulmay safiirka qadar muxuu ka rabaa ma jirto mana loogu darahayo waxaan in leeyahay cidiina ma jeerteenay be careful ka ahaada cidiina habar gidiray waxaan leeyahay be careful kursi oo dhiig leh oo wasaqa ha isku raadsanina war ilaahi intaad ka baqdaan waa yoomul qayr waa yoomul arafa waa iid waxaan in leeyahay shacabkan waa soo baabi'iseen ilaahi intaad ka baqdaan farmaajo ninkuu rabo waddanku waa 4.5 soomahan 5 ka keensada 5 bilood ninkii dhiiqa qaadanaya ninkii xaq qaadanaya sabtiyo ayadii jirta oo Soomaaliyeed oo dhig jirkiisu ku jiro damqanaya laakiin ciidahan hawiye oo caada qaatayaasha oo habar gidirti gadaal ay ka ordayso oo mudulad oo gadaal ka ordahay waxa leeyahay mini sheega anigu halkaan caayba la soo fadhiisanaya ilaahay maahan aadana laga baqi doonana male farxaduna waa dhamaanaysa ilaa biri wixii ka dambeeyana waa isku soo xidxiidanayna kulay fiicanna hadda waa bilowday maanta waa wax aan walgad ingiriiska aan ka dhicin hur kulul ayaa ingiriiska maanta ka dhacaya marka waxaan leeyahay daadan iska sii jeediyay geedda qabuujisada ahayd la iska sii jeediyay waa adii kale waxa kugu dhufanaysaa marka waxaan leeyahay walaalayaal dadka noocaasa alla iska qabto beenyaa la isku sheegin weli ma una guurin xasan al khayre hotelka airportku dhex yaalo degan yahay joy maanta qof u faahan male waa tegi doonaa maxkamadiisa uuna ka garbixi doonaa waxa laalay wixii waddanka ka dhacay laakiin anigu waxaan hayaa codkii laga duubay xasan cali khayre oo dhahaya wareejiye meydka ka qaada ninka keenay u qaata meesha rabtaan ku soo duuga naga qariya meydka nin dhahaya taas waa haynaa kii qaadayaan haynaa oo soo duugayaan haynaa codkii xasan aan haynaa kuleba maxkamadda markii la imaanayo marqaatiyaal pure oo cod duubana lala imaanaya oo xasan cali khayre la qaldi karin iyo ninkii meydka intuu qaaday soo duugay kaasina waa la hayaa waxyaalo badan baa jira waan ognahay qof maanta badbaadin kara male laakiin maanta waxaan rabaa inaan nii sheego adinkoo iid mubaaraga oo iid wanaagsan ay tahay waddanka Soomaaliya haddaanan the criminal Fahad Yaasiin aan laga qabanin wax soconaa male maraykankan baas iyo qaramada midoobay ninkan inay xiraan waa ninkan waa al-shabaab weeyaan ninka safiirka qadar u fadhiya Soomaaliyana waa al-shabaab labaad wuxuu Soomaaliya uga daba laabanayo marow tago Jubaland iyo marow tago Puntland iyo marow shalay la kulmay qorqor we don't need it marabno dawladdan qadar waa inay faraha ka baxdaa qadar ilmaheenii cuntay ilmihii yaraa oo halka ku jiray oo adigu ifka keentay ya ayay cuntay qadar iyo Fahad Yaasiin asaa qaraxa keenay saa waxa la damcay in loo saaro imaaraad bal ilaahay ku dhaashay ka waram markaas waxay yiraahdeen CID-dina warqadii madaxweynaha inta la keenay waxa la yiri wax la baari karo oo alla leeyahay oo qaraxa ma jiraan markii ay weydiisid nimankii CID-da oo tiraad way u bayay yaa keenay qaraxa inta waxay ku leeyeen warqadii madaxweynaha taal ma la baari karo marka maxay tahay waxaan ka hadlayno wax laga hadla meesha ma yaalaan marka waxaan leeyahay maanta banaanbaxu waa yaryahay waxaa la rabaa Soomaaliya inay soo jabto 4 koono oo banaadir farmaajo loogu tago bila Soomaaliya haddaan farmaajo loogu tagin milyaaya hawiye oo mudulood ah
ama habar gidir ama hawiyaha kalena waa ku dhimanayaan magaalada dhexdeeda just now haddaan laga sii fakerin ninku Fahad Yaasiin waa criminal ninka criminalkana waa la iska qabtaa adduunyada meel kasta waa la gaarsiiyey waa ogyihiin ilaa Mareykan waa ogyihiin Fahad waa criminal maanta waxa la soo dejiyay shacabkii Soomaaliyeed inayna geli karin Muqdisho marka waxaan leeyahay waad kacaysaan waxaad tusaysaan hooyada kaa masruufta Soomaaliga oo Muqdisho ku dhalatay oo baasaboor qaxooti ahaan u qaadatay in la yiraahdo xamar ma imaan kartid waa habeenka xalaal tagay farmaajo waa inaad bila Soomaaliya ugu tagtaan waa maalintii ugu dambeysay dhibaatada Suudaan ka socota ama Yurub ama Ingiriiska dad badan baa Istanbul ku xirxiran oo Yurubiyan baasaboorka fiisaha waxa laga qaataa anaa ka qaatay airportka Muqdisho dhexdeeda laga qaataa maxay tahay aniga invitada la iga soo diraayo Muqdisho ma barkay anigu ajnabi maana ajnabi ma noqday Soomaalida maanta qof hadduu ajnabi yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ajnabi qof hadduu tuug yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tuuga qof hadduu qarandumis yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qarandumisa maantana wuxuu keenay Soomaaliya lama geli karo fiisa waa inaad soo qaadataan intee ka timid adiga intee ka ciyaareen adu markay soo galaysay ma fiisa ku soo gashay wadanka maya airportka lagaaga dhuftay yes $60 oo micno daraana waa lagaa qaaday marka maxay tahay waxay ku hadlaysid international ki akontana Soomaaliya 60 ay noqotay bakee dadka jooga meesha dad iimaan lama inay shacabka marada ka bixiyaan ay majuujiyaan dhiiga ugu dambeeyo farta kaaga haray in laga shubtay rabaan marka waxaan leeyahay xamaray ka hooyada biri ma imaan karto qof allaaliye qofka iswadan cidiisu ay joogto iyo hooyadii soo socotay iyo tii London ka tagaysay Turkiga ku wada xirxiran yihiin waxa la yiri amara la soo diray waana amarana walgiis dhicin waana international ninka airportka jooga iyo ninka jooga maaragtay villa Soomaaliya waa isku aqli hal iska qabto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ina ugu gashaan villada haddaan ugu gali weysaan tan waxba ma noqonayso waa maalintii lagu cunahay oo lagu sumeeyay horaan inii sheegay qadaro inay inii sumeysay in ka baxdo taasaa ka go'an ayada suntan Muqdisho waa la keenay Ethiopia laga keenay ama qaado ama ha qaadanin I don't care laakiin waxa inii sheegaya maanta Farmaajo hadda iska kicin weydaan iyo Fahad Yaasiin iyo kan airportka aadan cadde oo wal ku baadiyay madaxweynayaasheenii hore sharafta iyo magaca iyo muuqaalka kala ah oo sida Farmaajo kale aan killer ahayn waa in la iska qabtaa wuu dhacay wala soo dhaweey gacmiisa kor loo qaaday diida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhawo soo wuxuu yiri airportka lagu bahdilo asaga iyo khayra waa ka dhaxaysa sheekadu maxaa khayra kaliya korka looga saaraa yaa mindida iskale yaa dawladnimada iskale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laha annako asaan dhaarsanay asaan kitaabka gacanta u saarnaa annako khayra kitaab gacanta loo ma saarin waxa maanta oo Fahad sameeynayo oo walaalihiis oo madax ka wada dhigayo Mareykanka jooga oo leeyahay khayraadkii Soomaaliya waxa ugu dhigayaa maareeyo koowaad iyo maareeyo labaad iyo maareeyo saddexaad intee ka timid yaa siiyay khayraad ya intee ka timid sharcigaas marka waxaan leeyahay haddaan la kicin oo Farmaajo bila Soomaaliya loo warnin ciidan kuma dili karo war Ilaahay duu ku talagalay waa dhimanaysa airportka noo ballaqa annaka ugu tagayna bilada soo qabanayna Farmaajo ballan Ilaahay waayo war may dhigi kartaan waa la soo gali karaa anaa intu saay inaan imaade Farmaajo inuu waxba ahayn intu saay anuu gobolka Banaadir joogay وقال كرسي قاعدين كاله بلا Soomaaliya lagu raaxaysanayo shacabka Soomaaliyeed baa iskale waa ugu galaysan ninka xuno airportka joogana waa ugu galaysan ula jeedada ay wadaan inay dagaal wadanka ka ridaan ay rabaan inaad iska qabataan waaye intayna magaaladu baabi'in oo airportka laga soo deganayo oo dhiseen Sheekh Shariif iyo wiil kale oo sacad oo injineer Mareykanka joogay ya inta la baabi'in Farmaajo la iska qabto haddii hooyada caaw Suudaan ay ku xirxiran tahay airportkeeda oo la yiraahdo so sorry Soomaaliya waxa ka yimid nin aan fiisa wadan ama invitation yaa waa qofka aniga xamar iga marti qaadaay ma eelkay marti qaadaay ana u dhashay xamar ma intee joogna ula jeedadu maxay tahay marka waxa la Farmaajo la iska qabto id mubaaragna waa leeyahay waxa socdana waa la joogtaan wana wadaagaysaan kulligiin ilaahayna waxa leeyahay ninkan Allah naga qabto ninkan waa nin waa shaydaan waxa la yiraahdo ummadda waxa ku dhex jira nin aadamaha u eg oo aadamo u eg laakiin shaydaan ah ama jin ah ayaa dadka aadamaha ku dhex jira la yiri ninkaanu wajigiisa qof caadi aan u malaynaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin laakiin waa shaydaan sharaadiintii la sheegayay oo similar aadamaha u eg weeyaan labadan nin marka labadan nin haddaan la iska qaban oo wadankan aan loo kicin walaalayaal wax soconaayo mal waana idin salaamayaa id mubaarak kulligiin farxad wanaagsan banaanbaxaad samayseen waa nuulla waxba maahan waxaa la rabaa inaad tagtaan villa Soomaaliya dhexdeeda inaad tagtaan haddii hooyada airportka ay ku xirxiran tahay Denmark iyo Turkiga oo la yiri diyaarad mala waxay soo saareen dawladii sheekadan waa inaad soo daafacataa hooyada waa inaad ugu tagtaa villa Soomaaliya atraa
amarkaad hooyaday maadaa soomaaliya markaynu hooyaday soomaali ahayn see ku keentay madaxweyne waxaanba ka lalaboonahayaa inaan idhaaho ankay madaxweyne moogtiin marka waa diiqoona wallahina been inii sheegeen waa ka diiqoona inaan idhaha madaxweyne noocaas ku dhaqmaaya waxaan u aqaanaa jibista yurub joogtoo kale oo guuraaga dadkaan guryaha layn maaragtay oo erlootyada seexdoo guura oo baabuurkooda guriga dabada uga xirtoo guura waa jasla daad maxamed cabdullaahi farmaajo markii hadduu aqli iyo siyaasad uu leeyahay ma dhehenin soomaaliya anu waa imid fiisaha erborka laga siiyey dowladda xasan sheekh dowladdiisa markay curatayaan imid fiisaha erborkan ka qaatay $60 aan bixiyey adduweynuhu waa $50 laakiin soomaaliya waxay gaartay inay tiraaho $60 ma aqaano dhiigmiiratooyinka meeshay jooga laakiin waa $60 alla ingiriiska maanta kuleyl ma ahan kan bismillaahi raxmaan raxiim ilaahu dhaaf maanta noogu horeysa kuleyl annaka yuunadan wallahi maanta noogu horeysa markaasuu wuxuu noqday sharooko aad u kulul oona dabayl ayna jirin oona geed leexsanaynin laakiin jirka ku gubanahayo gurigaad isku celinaysa marka waxaan leeyahay walaalayaal mudaharaadyadu inay bataana la rabaa mudaharaadku inuu bato waxyaalaha la samaynayana wax loo adkaysan kara inaynan ahayn hooyooyin badan ilmo islaamiyad oo masaakiin oo waddankoodii loo soo celinayay oo yaryar oo saqiira ayaa waxay ku badxiran yihiin airportka Sweden ilaa xalayto ilaa maantay waxaan ku leeyahay Turkiya sidoo kale u buuxdaa diyaaradii qaad leed xalay way ka hareen sababtaasna waxa ka dambeeya maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu la jeeda cakiran iskale marka waxaan leeyahay shacabka gobolka banaadir degan ama muqdisho degan waa inaad badisaan banaanbaxa aad ugu tagtaan oo aad tirahaan listen to me shalay annakaa ku dooranno maantana madaxweyne annakaa ku diidna ka kac kursiga ila kursiga farmaajo ku fadhiyo waa kursi shacab kursiga guriga hooyadiis kala yimid ama guriga naagtiisa midna maaha shacabka soomaaliyeed baa iskale farmaajo meeshuu joogo ku raaxaysanayo oo dadka ka adoonsanayo oo dadka ka soo abaarahayo ka baabi'inayo waa kursi laga leeyahay magaalada muqdisho dhexdeeda waana kursi ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed qabiil kastay u dhasheen marka farmaajo haddaanan just now la iska qabanin bilaha soo socda waxyaalo badan baa isbedelahaya markaasaa gadaal iga xasuusanaysaa maanta haddii hooyadaa Sweden ay joogto oo airportka Sweden ay naaska ilmihii ku siinayso ay dhex fadhida Turkiya dhibkaasay leedahay wax kale qabtaan markay waayeen baabuurtii ay xadeen bal farmaajo la yiraahdo 83 bas oo loogu talagalay gobolka banaadir kaliya gobolada xaafadaha in loogu adeego oo la siiyo agaasimayaasha xaafadaha kala haystaa ya xagee ka bixiseen dekada dhexdeeda ay ku gadeen waxaan rabnaa oo kale doomihii ay faa keentay waa 55 doomood xagee ilaa waxa loo qaatay meeshii magaceedii maxay ahayd ii sheeg markii oo laga tago boosaaso waqooyina aan laga gaarin meeshaan ay degan yihiin dhulbaantu iyo warsangeligu ayaa waxa uga wacay ninka haysta maareynta maaragtay xagga badda wuxuu yiri adeer kaale adeerkiisa yimid 2 doomood uu siiyay yaa iskale doomaha 5 galmudug baale 5 Puntland baale 5 Jubaland baa iskale 5 waxa iskale koonfur galbeed 5 waxa iskale hirshabeelle inta kalena muqdisho in lagu tababaro dadku si ay malay dabato u noqdaan ee malaygooda u gataan ay suuqa u keenaan ayaa loogu talagalay fa waa taqaanaa waa international mi fahanteen una sheefta inkay la shaqaysa aaway intay ka baxeen maxay tahay 16 ka baabuur oo xalay uu leeyahay 16 baabuur aan waxaan ka soo qaaday cayr iyo sacad iyo xawaad ma jeerteen baabuurkaaga ma baahna hawiyana baabuurkaaga ma baahna tuuga adinka oo baabuurta gatay 140 160 suuqa weyn ay lagu kala gadanayay baabuurtii loogu shaqayn lahaa wadanka oo la siin lahaa nimanka dawladda cusub ama dadka u shaqeeyo wasiirada iyo dadka madaxda ah baabuurtii la rabay xabadu inayna karin oo lagu shaqeeyo waa baabuurta 140 lagu kala gadanayo 60 muqdisho dhexdeeda lagu kala gadanayo maxay taa waxaan ka hadlayno xalaa waxa lagu leeyahay daraadan ka hadlay xalaa waxa la yiri 16 baabuur la soo celiyo walaal waa ka badan tahay baabuurta intaas waa ka badan tahay xisaabta waa haynaa inta Mareykan keenay inta Talyaani ku siiyay reer Yurub intay ku siiyeen wadamada Turkiya intay ku siiyeen baabuurtii meeshay ka baxeen horta goodaha barakeliya wuxuu qaatay koow wato iyo laba kale asay 3 baabuur ku maqan tahay marka maxay tahay waxa laga hadlayo doomihiya maqan basaskiya maqan badeecada cuntada maqan tii loo soo diray markii qasaarooyinku hiiraan ka dhaceen ayaa maqan lacagihiya maqan kuwii waqooyi laga keenaa la xaday maxay tahay waxa laga hadlayo marka maxay tahay waxaan ka hadlayno dawladda farmaajo waa dawlad mariid ma taqaanaa sunta oo maska waa ka daran tahay dawladda farmaajo waa dad arag ay ka dhaxayso iyo shilin yar oo meel yaal iyo aragtidoodu waa isfiirinayaan horey ka qaadahayaan lama arkay waa maafiya waa tuugo aan is aragna leewa marka anigu dawladda noocaana oo shacabka biyaha dhex jiifa afgooye iyo kuwa muqdisho capital waa la leeyahay uraysa boosaneerada gala
قال ساكن وادقي أيان دويتنا وادقي مقدشة أرك حافظها واكلة تقاناني أرك حافظها بيو سيد حيالان يقولون كي بارده يدخسك كودي كذا مقدشة تحديدا لعقتي دقالي نقول ساي أو إنترناشونال كبحيان ودوين كمقدشة نقول ساعو لعقتي يا قاتي تاسلا كرما دولة دوينة كجوابته لحي توم بعض الرحمة معنا مايه دولة توجا هاتي marka waxa la yahay shacabka banaadir jooga waa ina kacdaan kursiga adinka ale farmaajo ma laha annaka ka dhignay madaxweyne maanta annaka kala noqonay namana xukumi kara asaga iyo wax la mid ah qawaafkiisba waa tug argodsasho u yimid oo maxay siyaad barre inuu u argudo u yimid waa the killer man waa ninkan waxaan ku leeyahay maraykan markuu ka imaanayay waa la soo buuxiyay oo ka dhulka adinka ale kursigana shacabka Soomaaliyeed ale maanta hada u kici weydaan wallahi billahi iyo tallahi illa tareeyo oo aad u malaysay wariir inayiin ayuu farmaajo ku soo wada adoonan ogeyn markii laga kor keenana meeqa ka dhimanay qofku markuu ogyahay hadda waa ogtiinaysi si ilaaliye ma gobolada meel ka soo raba inuu geeyo ninkan wuxuu tuuga farmaajo waa ninaan nixin markaas wuxuu yiri hawiyuhu waa ii jilicsan yahay waa dad nolosha ka dhaco u raayo yiri hawiyuhu ra'iisul wasaarnimo ay wada cararayaan waa runtiis bakti dhalayaatiin kulligiina hawiyuhu saa u dhantiiba maxay tahay kursiga ka raadinaysaan oo 4 bilooda waaba socotaaba dawladdaani haddayba dhacaysaaba Febraayo ma gaaraysaana runta inii sheegayay dadkii halkaas ka qabata xarig intay dadkii gelisay ee meel kor ku soo xirtay shacabka Soomaaliyeed maanta Muqdisho dariiqyadeeda lama mari karo waa jiranay hadda gurigaada ka soo baxdo marka maxay tahay kuraasta cidaan hawiyo baktiga ay raadinayaan bakti kala jirinaatiine maxay tahay kuraasta ay raadinaysaan ma 4 bilood ra'iisul wasaare rabtaan waa jeclahay soo kor ilaa uu habar gidir noqdo hadaan marada ka dhigin beedal xaraanan ku ibad aniga waa ogaan doontaa inaad la bilqaysato sida farmaajo oo la haysta aad noqoto dulfaha u qaada farmaajo ballan ilaahay weeyaan qorqor wareegayo annaka uma baahnin ra'iisul wasaare 4 bilood waa helayna haddoo daarood noqdo madaxweyne ra'iisul wasaare hawiyaha la dhaxdhigaya ra'iisul wasaare dambe madaxweyne soo magacaabi doona ma jirto haddii oo madaxweynuhu hawiye noqdana ra'iisul wasaaraha dad baa iskale tafaddalan la ma jeertaan qaada kursigaada iskale alla yaa ciise oo soo dhaweynaya asboo ay soo dhaweeyeen asagay ogaadeen boo ay soo dhaweeyeen qayr allah siiye marka waxaan leeyahay farmaajo kursigiina kala dagaala farmaajo kursigiina uu kaca hooyooyinka masaakiinta buushashka ku jira lacagtoodii ninka cunay weeyaan oo shirkada ku darsaday farmaajo maanta waa gariirayaa ceebtiisuna banaanka ay u soo baxaysaa maanta maalinaanan ahayn ayaad isoo ogaan doontaan waxaan inii sheego oo dhan hadday soo bixi waayaan anaa excuse me intaan soo fadhiisto idaacadaha internationalka iska dhaa Facebook BBC intaan soo fadhiisto London dhexdeeda anaa raaligelin bixinaya ama Granado meesha aan deganahay waa BBC Granada inaan tagaan waxaan leeyahay excuse me maxamed cabdullaahi ku qaldamay dawladda Soomaaliya ku qaldan hadaan ka bixin waayo doofaarana laakiin maanta waxaan inii sheegayo all what true waa in ka bajaa geedka tuuga oo villada inii fadhiya oo saasta kaliya iyo saasta ku jira anu waa in ka bajaa ninkii tol ahaan ay dhibaysa in adeerkiis maanta in tuug lagu sheegana waxa la rabay inuu yiraahdo waraayo dadkii aad dhacdeen iyo iscasir waa hadii tol jiro tolku waxa la rabay inay isqabsadaan marka anigu mareexaan oo dhan ma dhahay mareexaan waa la kala saaray yaa kala saaray maxamed cabdullaahi farmaajo kala saaray anima kala saaray mareexaan oo dhanna lama duubna maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan haysanaa rag badan oo mareexaan oo qabiilooyin badan lafa badan oo mareexaan ka kala soo jeeda oo shaqo ku lahayn oo madaxweynaha runta u sheegay oo waliba uu ku daajoyo war iga xafiiska nin magaciisa inaan sheegan diiday waxa la yiri dariya ka xafiiska bilada inuu soo gelin mar dambe ninkan ma fahantay marka sheekadu waxa la yiri faano la faro kama qodno maxamed cabdullaahi hadaad ugu tagtaan adinkoo mudaharaadaya oo dagaal u soconin oo yiraaha kursigeena ka rabnaa kursigeena nasi oo bilada aad gashaan farmaajo kursiga waa dhiibahaya haddaan rabtaan inuu Fahad Yaasiin inay sii birbireeyana u sii seexda farmaajo intuu in ka taqallusaayo gabdhihiina la train inta loo keeno laga fuulfuulayo oo adoomadii Amazona ka fuulfuulay haddana la train ka fuulay Ethiopia oo ku dhaaf waa ka xoogayay oo ogeyno koonfur galbeed lagu wada xoogay ninka ciidankaas oo ma xasuusataan naag uur leh xoogay iyo gabadheedo caruur 8 jira yay qaraabo ahaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo qaraabo ahaayeen sharcigu ma soo qabtay sharcigu ma soo xiray naag la qabo xamla ninka xoogay ila farmaajo ila adeerkiisa oo ahaayeen ma la soo qabto ciidanka watay jism reexan markaas wuxuu ugu jawaabay ma taqaanaan naaya ma taqaanid miyaa wiil madaxweynaha walaalkiisa
ولا لو حال قاضو مدحوينه ولا ليد وحب ما ترى ولا وحب ما ترى ولا اسكا قبنايا ولا بديلايا او مامينتا اي كاغا خنتانا لو قبنايا سومالينا waa taqaana markay qofku wax la beegsanayaan saacada iyo waqtiga iyo time-ka uu ku haboon yahay wax la beegsano marka Soomaali Maxamed waxa leeyahay hurdada laga kaco wadankiina u kaca farmaajo kursigan waa kursi shacab farmaajo ma iska lahan farmaajo waa inuu kursiga shacabka u siiyaa haddaad kursigiina u baahan tahayna waxa loo baahan yahay inaa wada kacdaan عاد قاتيال $4 قادنا هاي يهاي ويل كده شغال رسمي وهلو أو بيل وكينا هاي جورجا ياورن وحيرن ويل كأنت شغال يبص مايو بيل كجورجا كينا هاي أما أقومت مصروف هاي أما برتو ويالا مصروف هاي أما أبيسو ويالا جد أحير هاي أو مصروف هاي هدار تانا نركز جارنو نكان كم جارسين وضرك تنقف وشغال سيون قبيل كيس إن صومالي متشوجا أسجى رئيس الوزراء ووحيدوني شقوي كالكاس اللي لقينا أدادن إهن عدان ينتي أدادن عدة مرصدة إهن ينتي وأنا أركت نسوي وحجران ما أنتن ومرصدي وحل عينها هي لكن وحل ليه مريحان ودن عايدة إسكملها ندد جونيها إسكاله نصب نمدو ولا شيء بل كرسي جينا أن كقاعدنا محمد عبد الله فرماتش مركز عن محكمة الكورن فرماتش وحكوها لها أيام دونينا فرماتش وأنن الشباب قعد لا سجنا فهد ياسين ناسا كنسدي ولا بنينو كيلر ولا بنينو صومالي بابيسي ولا بنينو قربها انت لعكو بحيين قبر مساكين ومشيرتين وشقيسته ومريكن كجوجتا فيسبوك جاي كجرتا دب الراعه سيده لو ديلي قبر داس ايدو شقه كسو بخدا ميشه شقada laga soo tabagalay markaas baawirkeeda lagu dhaxdilay say wajiga saantiri jilib hadhiin luga hadhiin gacmo hadhiin dhiig socday noqotay ninka naag dilay muxuu yahay waa laga roonanay لكن نفيو مستحيل ناق مديلها ناق واكو ده شيء وكلان دلتي وأقول دحضي وجبر دادي ما كديله ناق علشان جبر ناس في فيسبوك كده علشان ما يودي شيء ما أنت حفصك مريكان كجودها وفريان لقى منا يابو إني صاب حان من كاس مريحان كان ذي نكيم مادي قان واو جيدين سدات كل أو أيام نقول لك قان والله بشر قليتان عمر ابن دحيس يا كدم بيه محمد عبد الله فرماش كدم بيه لبن نبو أديك سيد ويل وحما مصورة وهذا مجلس يجوي يمد لها يصال أو قبل مساكين أنتوا قبيل أنا قبيل كيس أنا كوني كحسدي أو يرنين أو قاعدين هم مكاهيل أنا هاي بل أنت لو أركن مكاهيل أنتوا واحد جوسة كعرر هاي بل حاجة لو أركن ندل ذو مكاهيل أو قبيل كيس أنا شاجن هاي ولكن ما ركتنا دم ماني وحو يري قلا كلام هاي ماني وحو ما شرتنا كيوش شكت نيك وافش المثال قبيل كيس أنا وشكتها gabadhii isaaq intuu dubay ugu tagay oo wiil laga dhalay oo u gooyay dhasar maata naag cadaan oo qaba oo dadkan faqriga wadamada Yurub ka yimid oo soo galay Ingiriiska London oo ayagu Soomaali ka baahi badan oo wadamadan maxaa la yiraahdaa Bulgaria iyo maaragtay wadamadan East European-ka ka soo cararay oo baahida la soo cararo shaqooyinka raadiya sida Soomaalida naagtaas oo qaba dhasar maata waa qabi karaa naag cadaan wax weyn uma arko laakiin way abeen ugu sheegaysaa gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo kula dhalatay taasaa laga dhintaa Soomaalinimadu qofka waxa rabtid guus laakiin Soomaalinimada iyo jinsinimada iyo islaamnimadu waa inay kugu dheertay qofka Soomaaliga qof kasta waa ka xiga waxaan ilmahada iyo qabiilkaad ka dhalata aadanayn marka dhul qurba wada joogtaan qof kasta waa ka xigta marka Soomaaliya waxa ay sheegayaan dad badan waxay u baahan yihiin quraan saar marka waxaan leeyahay farmaajo la iska qabto haddaan la iska qabanna waxyaalo cusub baad areysan maalintaasna anigu halka waxa la soo fadhiisanayaa alalaas ما قانو لكن وأولولاينا أنا قلنا مركب وحنا لا وين السلام هيا إد مبارك إلهي نوحن كبر النك كاس الله نجحت أنا قوي شيء هرانا لا يقول شيء وبالفكرين واي وحل يردد واحد كذا اسم كوك إلهي ومديسة وأمجين أما الشيطان محمد عبد الله فرماتشي فهد ياسين لبضع سكتر سنين اسم أهم وإنه أجيين اسم كيو أجيين لكن والله من الشيطان وتروريستا ويا أنا إني دهاي محكمة كستول صار محمد عبد الله فرماتشنا ولا تيك سنايا وتروريست دكون الدل قيامه يديك يدل يدع يدريقية دي وحرته مركب بختيال واي واحد مقدشة دوامنا ودم وبختي جينا إسكوا وضعنا إسكت أحشيفها هذا الرياكشن هي لأننا بريم كاجرتان ها أو يننا قرب جوب دم العجين يسوي لي سنة بتشرب بيو مركب أساس إني قادر والله أنا قف قرب جوب $1 تولي العجين يسوي بحاجة بحال أدينكم ما كذا بتكتين هيران لعبت لو سودي بحاجة أد مريكان ولا قاعد إنجليز ولا قاعد أستراليا ولا سوق قاعد حاجة أد لعبت إسكتاف وده بدأ عربات جيبوتي أقول لي ده طبعا سوقت هاي أنت أد العجين يا قاتل العجين مستر بيلا ما ودي سين كابا ما فيها أقوي ذاك مايا
maanta waxaa la isku haystaa ra-iisul wasaare marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaarena wuxuu yidhi maxamed cabdullaahi farmaajo kelmadihiisa markaan dib ugu noqday wuxuu yidhi maanta maalin ay ka jilicsan yihiin hawiyuhu ma jirto yidhi waa naflacaari uu yidhi nafta alcaari adigu argsay dhareerka u wada daadinahayaan laakiin dadka kalen ka keenahayaa uu yidhi raxaweyn iyo gibilcad iyo dadkaasaa ra-iisul wasaare ka dhigahaya waxaa la yidhi qorqor dadkaas u tag markii la dhahayay daraato habeennimadii oo xisbiyada habeen la kulmaayay habeen hore ulajeedadu maxay tahay waa qalad 4 bilood inuuba u raadiyo qorqor madaxweynaha galmudug inuuba habargidir 4 bilood ra-iisul wasaare u raadiyo waa wax laga dhinto waa wax lagu ceebooba inkii 4 bilood saa waxaa la yidhi nin raga haddaa taa la yidhi ragnimadaadaan tijaabinaynaa xisbiyada u tag xasan sheekh maxamuud iyo u tag aa la yidhi majeerteenka u tag ogaadeenka iiga soo dhammeey labadan goobal hirshabeelle xuniyo leeyahay tolo waaye waare ilaahay il iyo afba iyo oofba allaha kaa hayo waare tolbo waaye tol wax la wadaago wax la dhiso wax la qabta tolka markaan ka wado ma ahan inaad maaragtay ragga hawiyaan ka hadlahayaa kama wada xawaadle waxaan ka hadlayaa ragga hawiye tolbo waaye waa nin xalaala waa nin xawaadla waan ogahay laakiin waa nin xalaala maalintuu saas dhahaya maxamed cabdullaahi farmaajo haddaad garab istaagi lahaydeen maanta hirshabeelle waa haadi lahaa maanta qorqorna kuma wareegeen waa wax laga dhinto asagoo madaxweynihii galmuduga ayuu 4 bilood wuxuu ka tuugsanahayaa nin habargidir in ra-iisul wasaare looga dhigo war habargidir oo goormaad cuni jirteen bakti meel la dhigay goormaad cunteen anigu ayni sugahayaa ilaahayoo maa la yidhaah waa habargidir ra-iisul wasaare taan kugu dhigo aan kugu dhigno aniga keliya maahaane habargidir oo dhan baa kuu taagan inay ka caytanto facebooka yar iyo weynba waa la taagan yahay shalay ma aanan ogeyn hadhi annaku bakti ma qaadano walaal nafla caari 4 bilood waxaan dhammayn waa 3 bilood iyo 20 iyo dhowr beri waaye waxaa haroo dhan markaasaa nafla caari waxaa la leeyahay ra-iisul wasaare nasi habargidir annaka waxaa nahay mudulood annaka waxaa nahay ra-iisul wasaare nasi oo haddaa xiniye leediin oo tacliin leediin oo waxaad barateen waad imaan doontaan ma isi soo wada sharaxdaan kulligiin roonaaba rabbiyaa oge ninkii wax yaqaanaa soo baxaye nin kastaba cilmigiisa maanta la tijaabinaya iyo aqoontiisa iyo kan anigu waxaan badhihi lahaa nin aanan sheekh shariif ambiya madaxweyne laga dhigin soomaaliya xalina waa cabdiraxmaan cabdishakuurna waa ir laban ku jeclaa cabdiraxmaan cabdishakuur raggii nabsaday inuu dharbaaxo horta kala daalo oo beenta ka sheeguu yidhi badow gatay ninkii badda friisinka ka dhigay ayuu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur waa kow xasan sheekh maxamuud awood uma yeelan lahayn haddii baddaas ay soomaaliya gacanteeda ka bixi lahayd maxkamad lama geyn lahayn waa labo laakiin wiilkan cumar cabdirashiid waxaa lagu masruufaa nairobi waxaanay saaxiib yihiin madaxweynaha uhuru kenyatta asaana ka dambeeya oo badda madaxa u jiijiiday oo yidhi waa helaysaa 50% waa ka helaysaan cumar cabdirashiidow urugiyay kugu dhicin soomaali habaarkoodu wou kacaaya iska ilaali waxa aad samaysay aan ku leeyahay waxa adigu aad samaysay oo carabkaad u gelisay rag tolkaayo aan naqaano yidhi bardhiiba dhaha wadaadadii al-shabaab ahaayoo dagaalada ku jiri jiray oo maanta cajaladooda aan wadayno shiiqa maxaa la dhahaa ii sheegay shiiqul ummiyo dagaalamaayo oo intaas daba socdo qoryaha wata aan haynaa wallaahi bilaahi tallahi cajaladiisii aan lahaya waa la ii soo diraani marka dadkii cabdirashiid caayey cabdiraxmaan cabdishakuur qadarna waa naga reebahayaa cidda goolnada dheer oo fahad yaasiin oo dabada ku wato oo maaragtay al-shabaabka ah oo terroristayaasha wax siiya na waxaa naga reebahayaa cabdiraxmaan cabdishakuur haddii aan dhinaca kale u fiirino aan idhaaho sheekh shariifna nin allaalay ninkii xaaraan cunay oo dhan maxkamad buu soo istaajinaya taas waa inii huba cabdiraxmaan cabdishakuur aanke waa inii huba xasan sheekh maxamuud qoslaaye waa jecla maxaan ku jeclahay wuxuu noqday madaxweynihii soomaaliyeed oo ugu horreeyey oo dhallinyarada la qaata qosol iyo farxad meel kasta ay joogaan markaasaa la yidhi qoslaaye ma waxaan rabnaa criminalkan noo fadhiya dila soomaaliya oo criminalkan oo annaku dad aan ka dhignay asagoon dad ahayn oo maanta dadkii iskala weyn annakana asaan ka cabsanayna ama cudurkiisa kugu dhacayaan isleenna dhallinyaradii oo ka cararaya weligiis lama sheekaysan jaamacad intuu hor fadhiista kama garbixin baarlamaan intuu tegey kama garbixin waad ogeydeen inta uu waddanka haya halkii mar uu tegay baarlamaankana wuxuu ku hadlay 65 qof ayaan wax barnay ku yeeno war ninku ma arka miya intuu xasan sheekh soo qabtay 65tana waa taa inii sheegay hadda cajaladayga la socotaan waa ilmihii inta turkiya la geeyey safaaraduna ilbaabka ay ka soo xiratay waxbarashadii turkiya markay tageenna la yidhi soomaaliya weli ma ayna soo jawaabin
ilaa ay dowladdiinu warqadii ugu dambaysa ay soo dirto oo halkan Facebook anoo live fadhiya layga soo waxaayo la dhahay eedo dhaxanaana haysa safaaradii ilbaabko naga soo xirtay ninkii joogay kanaana haysa turkidiina waxaa la yidhi Soomaaliya confirmation waxaan wacay Maraykan wiil mursadaa jooga Maraykankaan wacay oo best friend walaalkay la wiilkaa wuxuu wacay Seyna macallin oo joogta maxaa la dhahaa Dubai bal fiiriya Soomaaliya waxay tiri bris waxaan dhoofayaa caawan dhoofayaa saacadu markay isbedelaan anaa ka wartagahay leeshay ku dhamaat ilbihii turkiga gadaal soo ciisa marka farmaajo yaa waa ilmo uu sheegayo ma ku inta ilbaabada laga xirta lagu daadiyo turkiga mise ilmo kale uu sheegaya oo qaar carareen iska qaxeen qaarna li soo noqdeen ila guri aan hooyada iyo aabaha joogin bris male turkiga waa ku dhimanay waa tuugsanaysaa sad carabta soo qaxdo kaleete marka walaalayaal taasaan leeyahay ilaahay hayna xaafido banaanbaxa la adkeeyo banaanbaxa waxa loo baahan yahay muqdisho afarteeda koona inta laga soo banaanbaxo in villa Soomaaliya lagu ballamo villa Soomaaliya la isku yimaado kursiga adinkaale haddii aad u baahantiin wadankiina dhagaxda in laga qaado oo wadanku oo hagaago waa inaad farmaajo ugu tagtaan bilada ma ugu tagaysaan Soomaaliya rafaadka iyo qurunka ay ku jirtaan iskaga jira dadka bilaadanka waxay inay arkaan dad tuugsada inaad tiin Soomaaliya haddaad tiin waxa yaro charity-ga lagu soo diro oo barakacyaasha shacabka Soomaaliyeed wada baahan loo soo dirana bakaara lagu gataa oo yaa gata nimanka baac mushtarkaasi gata marka waa in ku fiican tahay baahidu waa baahanahay dhihineen lacag dambe oo dabada inay ka imaanaysana mal qurba joogna jaways og yihiin marka waa in salaamay id mubaaragna waa in leeyahay barkee inaan runta sheego waa ku qasbanahay waxyaalo waxay jirta aan laga aamusi karin ay jirta lacag baa laga aruurinaya waa la qaadaya Soomaaliya la geynaya jeebabka la gashanaya lacagtu kullu waxay hoos martay farmaajo marka meeshay ku dhamaatana waa arkayna waa sida doonihii aan ka sheekeeyay oo Talyaanigu FA ay keeneen iyo baabuurtii la yiri basas ay keeneen ayagoo waligood wax nasiibin qadar dekada ay dhisaynaa iyo waa been waa propaganda adaa la rabaa inuu ugu socdo dana ay rabaan qadar wax kale ma rabaan saxiixaas batroolka inuu sareeyo laakiin waxa la yiri durbaan ninkii qaatay meesha uu ku tumi lahaa ayaa la rabaa faadiyaasiino meesha aad ku tumi lahayd aa laga rabaa meel kastoo Soomaaliya kamida inayna qadar batrool iyo gas midna ka qaadaynan ku hayay dadkii waa isku wax gubtay iscasil ina al-shabaab taayna maanta Maraykan waa ku ogyahay Yurub marka waa in salaamay ilaahay maaragtay xaafido halla badiyo halla banaan baxo ha badnaado halla tu safar maacho ID-ga uu wato inuu ID qaldan yahay haddaad sameyn weydaan Soomaaliya waliba waxa leeyahay dadka mursade oo jooga magaalada Muqdisho oo degan iyo dadka hawiyo kale intay iskaashadaan la mursada waa hawiye waxaan ka wada calashaan waxa la rabo in xasan cali qayr dusha laga saaray kaligiis labada nin midna mindido haye midna waa goynahay yaa lagu kala saaray waa wada sameeyeen wax waa ognahay waa naga taqalusay xasan laakiin yaa mindida dhinaca kale uga hayay maxamed cabdullaahi farmaajo uga hayay marqaatiyadeedna waa lahay marka hala kaco banaanbaxa la badiyo ha loogu tago villa Soomaaliya kaashada qof kasta kaashanaysiin ciidan waxba ka qaadi maayo meel kasta ciidan lagu wareejiyo waxa tustaan awoodda ciidanka in adinku ka badintiin shacabka Soomaaliyeed uu ka badan yahay waana in salaami salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh id mubarak I love you program kala share gareey mid waxaan ka iloobay YouTube-kayga maxaa la dhahaa geedka waa iloobay subscribe maana anki hala saaro fiiska hala saaro ugu roonaada commentigiina dad badan aan arkay caasha bayo ku salaam adigana waa arkay commentigaada thank you very much habeenkii aan fiiriyaa YouTube koona maadsantiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya Soomaaliya ilaahay azza wa jalla oo shalay nagu sameeyaa maantana nagu xaafidaya laakiin ilaahay labadeena lugood qeyrkeena gelinay ninka xun waa inaan iska qabanaa ilaahay lagu socday gacmo wax la iskaga qabtaan leenahay ula jeeda kala kama rabno waana la dilo waana la dhameeyay farmaajo inuu kursigeena noo soo celiyo kaliya ka rabna taasna waxaan u baahanahay shacabka Soomaaliyeed inay kacaan ay ugu tagaan villada oo leeyahay kursigan ku fadhida iyo villadan Soomaaliya laga maamulaa Soomaalida la maamulana waa annaka iskale fago ka kac kursiga waana in salaam kulligiin salaam alaykum